الرحمن الرحيم waxaan rabaa galabta inaan ka hadla saddex qodobka koobaad waxa weeyo waxaan rabaa madaxweynaha farmaajo inaan fariin cad u diro oo kama dambaysa maxamed cabdullaahi farmaajo waad garanaysaa Soomaali sida ay ku dooratay oo ay ku rabtay boqolkiiba boqol bay Soomaali ku rabtay maanta meeshaad maraysana waad arkaysaa waxaana la rabaa qofka qalinka waxa uu ku bartay iyo waayo aragnimo iyo taariikh wax inuu isku darsado rag baa ka horeeyay oo dalkan soo xukumi jiray waliba aad eheltihiin ma fiicno taariikh xumo inaad ka tagto anuu qaraabaan hay oo in adeerkay baato laba nin oo mareexaan ahaan way idhibaysaa waana ka naxayaa taariikh xumo aad ka tagayso Soomaali inaan dib u xukunaan rabnaa boqolaalka aqoon badan baa jirta boqolaalka karti badan baa rabta waxaasoo dhan waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka rag Soomaali hogaamiye inay ka soo baxaan taariikh xumo se hadday dhacdo mana la doonayo Soomaalina way naga tashanaysaa maanta waxaad hambaysay male hawiye ma aadan hambaynin oo gogoshi ay ku teel ma aadan hambaynin waad ku tumatay gurigaagi ma aadan hambaynin oo gogoshi labaad oo gada ma aadan hambaynin oo waad ku tumatay kabla laxma aadan hambayn dir ma aadan hambayn 12 koofi nimanka cadcadka ahaa ma aadan hambayn cid Soomaali ah maanta oo ku bixinaysa oo sida adiga aad ku talagashay haday tahay na bixinaysa ma jirto ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxa farmaajo uu qabo mareexaan ma qabo lama qabno asagay shakhsi ku tahay walaalaha yaa tihiin waanu idin jecelnahay shalana waa idin jecleen maantana waa idin jecelnahay waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo beesha hawiya khaasatan beesha mudulood oo gogosha Soomaaliyeed ay fidsan tahay oo hooyadii Soomaaliyeed oo xamar ah waxa uu u geystay iyo waxa uu la damacsan yahay waanu ka raali garaynaynaa aad baan naga raali garaynaynaa wuxuu rabaa farmaajo diyaaradda saaran Hargeysa oo Maxamed Siyaad baan ugu garaacay ay leeyihiin oo la soo celin laayahay Soomaaliland sidaasoo kale uu rabaa in uu hawiyana ugu garaaco daaroodna ugu garaaco farmaajo hadduu nin wax garanayo abaal la u yahay nimanka la yiraahdo oo maanta uu ku fakanhayo ogaadeen waligood Kismaayo Barasaab Ilyas bedelka boosa ugu horeeyay kama noqon Barasaab intaana mareexaan bay daba ordahayeen oo garab taagnaayeen oo heel iyo hoob la garab taagnaayeen maanta uu quuri waayay 5 sano oo maamul goboleed ah uu quuri waayay abaal laawe war anagu adoo kale ma ahin abaalka ay noo galeen baan gudayna waa walaalahaya waana garab taagnaa say noogu sabcin hayeen oo gacnaha saas isugu dhacayeen Maxamed Saad ugu sabcin hayeen 50 sano ninkii ka weyno ogaadeen gacnaha kaatif buu ku leeyahay war miyaadan garanaynin soo wax ma garatid waliba waa reewowga ayaga ku dhalay war qiira xumida oo dadnimo xumida oo dameer xumida jado waa meeshii qoyskii aad sheeganaysa weey oo ka dhashay aad lahayd saaka mindiyaad isugu dhiibtay waxa ka taagan geda maanta kama taagna meeshii la dhihi jiray Itoobiya uu garaacay saaxiibka isaguna waa adoo kale waa bahal dadkiisu cunahay saasaad rabtaa inaad u cunto asaga macallinku ah maqalaad ka rabtaa gedo wargeda ma taqaanid farmaajo geda ma taqaanid kuwa kula taliya oo doqomaha oo xoolaha oo inay wax cunaan ma ogaan aqliga kala lahayn baa waxay ku yiraahdeen geda maxay tahay wargeda ma taqaanid geda aqoon ma farmaajo
fursad baad weli haysataa maalintii hore haddaadan tegin oodan istiqaalo dhiibin laguma doorteen lagumana soo celiyeen fursadda maanta aad haysato waxaa weeye inaad istiqaalo iska dhiibto cid ku dooran mayso cid kuma rabto fursadda aad haysato oo kaliya waa inaad istiqaalo dhiibto meeshii aad mari lahayd oo adeerkaa maray oo ka galay kama geli kartid maanta qodax baad ku daadisay kuwaana kuma rabaan addaba ordaysa lafahaaga maanta inaad badbaadsato diyaaradahu intay ku qaadi karaan inaad istiqaalo dhiibto taasaa fursad hood haysataa soomaali way ku nacday waa kaa tashatay laguma rabo kuma cidiga kaa xigta male caaw baahida dawladda aanu qabana qof soomaali oo u qaba ma jiro 80 jir baana wax damba ma tabci kara shaqo dambana ma qaban kara kursi jeeb xilliga lagu saaxan jiro la nasan jiray weeyo xilliga baad ikicisi balaaya ha ku kicisa adiguna bala ha ku kiciso farmaajo fadhigi baad noo diid farmaajo fadhigi baad noo diid hilbaha yagi baad nacusaysay dadkanagii baad nagu hor cuntay mana qaadan karno nafsi wuu ku qaban nafsiga Soomaaliyeed wuu ku qaban taa intaasaan leeyahay tan kale ummadda Soomaaliyeed Soomaali 4.5 bay wax ku qaybsatay xageed raacday oo wax ku raacday hal lagu doorto Soomaali ha ku doorto laakiin gogosheed gashay xageed ka soo gashay 4.5 kibaad qayb ka tahay ayagi ma rabtaa Puntland iyo Jubbaland eheladaadii jifadaada wata Soomaalidu waxay tidhaahaa nin hooyadii qorax ku jiiday aabii hoos ma hariyo waa kuwa dadku xigay waa kuwa aad walaalsan lahayd waa kuwa aad dhihileed warqoladan waa kacsan yihiin reer hebele ila dajiya war kuwan waa kacsan yihiin ila dajiya war xageed hambaysay Soomaali xageed ku wariyo ma baal baad leedahay ma buubaysaa ma lihid baal dad qofka dadka ugu lacibsan baatay waayo ninka hadduu tala xun yahay waa daciif ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka oo dhan gedaa laga hadlayaa jaraa'idadoo dhan geday qorayaan waxa aad nagu dhigtay Talyaani baa na qabsaday nuguma dhigin Ingiriis baa na qabsaday nuguma dhigin dagaalkii sokeeyaa dhacay oo UECD nuguma dhicin waxaad la mid tahay adeerkaa ninkii ahaa oo ugaasnimadii inta boobay kolkuu ugaasnimadii boobay oo isqabsaday yiri xawaadla ku duula habar gidirna ku duula ogaadeenna ku duula saddexdaa duula kolkuu baxshay yaa waxaa soo hartay ma jarteen ilinkiisi wuxuu yidhi kanaa bannaane kana orda ka soo laaya rag talaxumada waxaad u leedahay sal baad u leedahay iyo asab aadan xaashi adeerkaabuu ahaa saasuu sameeyey khiladii allaha siiyey maxamed xaashi gaani geda markii la qabsaday oo dagaalkii sokeeyey UEC ay qabsatay 14 jana waad ogtahay ayaa jifadaada ay ahayn 14 jana Saciid Faarax Gooji iyo Axmed Ursama weheliye hal nin ah oo soo hara waa la waay gaani baa soo haro mar dambe yimid asagina wax alla wixii technique ahaa iyo wax alla wixii ciidan ahaa iyo doolo kala gudbay wuxuu yiri sarsar maalooyin qabri iyo ninkii loo qodhay waa la isgiliyaa waa naga dhaqaajay baabuurtu waa kuwa naga ila yaal hadda war maxaad geeda ka dooli maxaad ku darsatay xeerkeed ku leedahay xeerkaad ku leedahay maanta geeda ku soo aaday ii sheegood ugu soo dad oo leedahay kulana ka tali maanta war kulana geeda ka tali ma adna ka talin maysid wanaag iyo walaalnimo lagu wada joogi karaa laakiin qaabka aad ku shaqaynaysa waa naqaanaa anagu Soomaali ma taqaano waxa aad Puntland Jubbaland aad wada dagaalamaysa waa naqaanaa laba nin oo raaxasan ah nin madaxweyne ku xigeen u yahay nin ugaas u yahay waxa aad ka dagaalamaysa farmaajo oo tufiyo fuusho aad u leedahay waa labada nin oo raaxasan maxay xalku waqtiin wiilka reer Axmed oo inta xabsiga aad ku riday ka soo baxay waxaniyihiisa saare kuwaas rabtaa inaad baabiiso Soomaali kuma oga anaga maraan waa is ogna waxa aad rabto meeshaas aad rabtaa inaad jaamac iyo fiido iyo kuwa rag aan ogahay aniga aad ku qor ma dhacayso wax dhacaya ma aha deegaanku waa la kala leeyahay awal waxa la dhihi jiray maraan deegaan ma kala leh
بانوي عبد وقرين جدا هو كهد لك روكة تلين كذا مجر ساق جدا لوقة تلين هيا واكل لنا أنا شو أنا قاعد أحس أقول له قبل لا أنتم سجرنا جدا أنا قاعد ما كتلينيش واسنا كنا نقول ما يسد سياسينا كنا نقول ما يسد وين أنا خالك هنا كما هانيس وحنا تقول تلين هيا ويلاش أتسول لجوش والله لينا ويلاش أنا هو يرجع علي ويلاشينا الله هذا واد ما سنتين أديكم ما هتسن ويلاشينا الله هذا حبضينا إذا كنا ما ين سراكيل جوديه هذا هل سنة اللي جوه بتاعنا أو عريسان بماشان فريد ما علين دونتان هرينا نمك رجع شباب باكجيل ما لك بحال ما لك ويلاشينا هواين ويلاشينا الله هذا كبح يدينا عوض حدها ويلاشينا دينا عوض حدها هو واد ما سنتين حانو إدين هينا أبال عند مانين أباله واحد نص ما يسوي وأبنه ونقصه قرمتين حدنا وأبنه ونقرب تعلمتين وإن الإبيسا والهوية أنا حبت كل فن أون راوعنا أون دلنا ومالو عرر وقرنوا أدبي نور إبيسا لا هذا ويلشنا لا هذا كسر مش waxa kale oo soo urursaday waa naqaanaa wuxuu kale soo urursaday ramiye wax ilaa soo urursaday waxa ma tarahayaan السلام عليكم ورحمة الله